السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijkeenu maanta waxa uu ku saabsan yahay biyaha iyo sheekada ninkii hadduusan 20 litir oo biyo ah maalintii cabin naftiisu ay halis gelayso iyo sababta arrintaasi keentay. balse marka hore intaanan u gudbin ayaan waxaan ka hadlayaa arrimo ku saabsan biyaha. biyuhu faa'iido weyn ayay noo leeyihiin oo jirkeenu badankiis biyo ayay ka samaysan yihiin. xitaa xubnaha sida lafaha oo kale biyo ayaa ku jira oo 30% biyo ayay ka samaysan yihiin lafo. shaqooyinka biyuhu jirka u qabtaan ayaa waxaa ka mid ah inay xakameeyaan heerkulkiisa. xilliyada kulka ayaa dhidid naga yimaada, sababtuna waxa weeye in biyuhu awood u leeyihiin inay keediyaan kul fara badan. waana waxa keenay in markii biyaha dabka la saaro ay waqti dheer ku qaadato inay karkaraan. haddii buufin ama balloon dab la saaro isla markiiba wuu dilaacayaa oo dabku waa daloolinayaa. laakiin haddii balloonkii lagu shubo biyo oo markaas dab la taabsiiyo ma dilaacayo oo kulka waxaa ka qaadaya biyaha. haddaba markii dhididku jirkeena ka soo baxo oo biyahaasi uumi baxaan ayaa taasi waxa ay keentaa inuu jirkeenu qaboobo, maadaama uu dhididku bannaanka u soo saaray kul jirka gudihiisa ku dhex jiray. awoodda ay dadku u leeyihiin inay dhididaan oo biyahaas jirkooda ka soo saaraan ayaa waxyaalo badan u sahashay. xayawaanada badankoodu inay dhididaan awood uma laha. waa waxa keenay in la dhaho haddii la tartansiiyo dadka iyo haramcadka ama jiitaha oo la og yahay inuu aad u dheereeyo, haddii masaafo dheer oo sida maarathonka oo kale ah 42 kilomitir lagu tartamo, dadka ayaa ku hormaraya tartankaas. maadaama haramcadka jirkiisu uusan awood u lahayn inuu masaafo dheer ordo oo isla markiiba jirkiisu kululaanayo, taasoo ku khasbaysa inuu waqti dheer nasto. fardaha ayaa waxay ka mid yihiin xayawaanada farakutiriska ah oo awood u leh inay dhididaan, taasoo u sahashay inay masaafo dheer ordaan. waxaa jira tartan ka dhaca UK sanad walba oo lagu tartansiiyo dadka iyo fardaha masaafo dhan 35 kilomitir. inta badan fardaha ayaa ku soo baxa, laakiin dhowr mar ayaa dad ku guulaysteen orodkaas, taasoo ka dhigan in masaafooyinka aadka u dhaadheer ay dadku la tartami karaan fardaha. markaan u soo gudubno sheekada ninka maalin kasta khasabka ku tahay inuu cabo 20 litir ama jirigaan buuxa oo biyo ah, ayaa waxa uu ku nool yahay waddanka Jarmalka. xaaladiisan ayaa waxay ku dhacdaa dad kooban oo waxa ay keentaa inay u baahan yihiin biyo fara badan oo ay cabaan, haddii kale ay naftoodu khatar galayso. xaaladan caafimaad ayaa waxa Ingiriiska lagu dhahaa diabetes insipidus. waxa ay isku magac dhow yihiin cudurka sonkorowga oo magaciisa oo dhammaystiran la dhaho diabetes mellitus. xaaladan ayaa waxa ay keentaa kaadi xad dhaaf ah, taasoo ka dhigan in qofku biyo fara badan uu u baahdo inuu cabo. laakiin dadkan ma qabaan cudurkan sonkorowga oo dhiigoodu sonkorta kuma badna, ee dhowr qaabood oo kale ayuu cudurkaani ugu dhacaa. keliyaha ayaa waxay jirka ka nadiifiyaan haraadiga uusan u baahnayn, kaadidana raacsiiya. haddaba waxaa jira hormoon ka yimaada maskaxda oo xakameeya shaqada keliyaha. marka ninkaas Jarmalka ah keliyihiisa ayaan si fiican u aqbalin hormoonkaas, taasoo keentay in keliyuhu biyo fara badan oo jirku u baahnaa ka saaraan oo kaadida ku daraan. maadaama aysan keliyihiisu aqbalin shaqada hormoonkii u tilmaamayay xaddiga biyaha kaadida la raacsiinayo, ayaa taasi waxay keentay in keliyihiisu biyaha jirkiisu u baahnaa ka saaraan oo kaadida raacsiiyaan. ninkan ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in saacad iyo bar kasta uu biyo cabo, suuligana galo. xataa habeenkii xilliga uu hurdo uu 2 saac kastaba uu soo kaco, maalmaha qaarkoodna uu suuliga galo wax ka badan 40 jeer. waxa uu ninkani ka sheekeeyey maalin uu sigtay kadib markii tareenkii uu la socday waddada ay ciladi ku heshay, taasoo keentay inay ka dhammaadaan biyihii uu sitay. waqti yar kadib ayaa waxa uu dareemay wareer iyo daal soo galaya, taasoo macnaheedu yahay in jirkiisu uu dareemayo biyo yaraan. yar saaxiibkiisa oo la socday ayaa markaas biyo u keenay. haddaba qiyaas ahaan maalintii waxa uu ninkani cabaa jirigaan 20 litir oo biyo ah, isagoo ay gurigiisa ka buuxaan caagado biyo sifaysan ah. inkastoo dadka caadiga ah aysan u baahnayn biyo aad u fara badan inay cabaan, ayaa haddana waxaa la qiyaasaa in ku dhowaad 2 litir uu jirku maalintii u baahan yahay. biyuhu waxay ka qayb qaataan dheefshiidka, waana waxa ay dhakhaatiirtu ugula taliso dadka calooshoodu fadhido inay biyo badan cabaan. maadaama biyo ku filan oo uusan qofku cabin ay keeni karto in calooshiisu socon weydo, sababtoo ah markii uu jirku dareemo inay biyo yaraani ay hayso ayaa waxa ay xiidmaha waaweyni sameeyaan inay saxarada ka reebaan biyihii ku jirtay
taasoo ka dhigta wax adag. Biyuhu korontada ma gudbiyaan. Sababta keentay in biyuhu korontada soo qaado ayaa waxa ay tahay cusbooyinka iyo macdanta ku jirta biyaha. Xataa caagadaha biyaha sifaysan waxaa ku jira cusbo, taasoo u fududaydisa in korontadu ka gudubto biyaha. Laakiin haddii biyaha intii warshad la geliyo laga saaro cusbooyinka iyo macdanaha ku milmay, markaasi biyahaasi koronto ma gudbinayaan. intaas ayaan noogu joogo barnaamijkii maanta. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.